بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تاوديال صاحبيال soo dhawaada beesha caalamku waxay markii labaad qalbada bash ka siisay maanta oo kaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya sharciyadii madaxweynaha ee lagu doortay isaga ayaa daaqada kala baxay dastuurkiina isaga ayaa waxa weeyaan gabi ahaan baabiyay oo dastuur cusub samaystay sharciyadiisa maadaama ay baabaaday waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalinkii shalay ahaa dastuurkii Soomaaliya ku meel gaarka ahaa ee ummadda Soomaaliyeed soo ogolay gabi ahaan daaqada ka bixiyay dastuur cusubna isagu samaystay markii labaad ayay waxa weeyaan 48 saac gudahood qalbada bash ka siinayaan beesha caalamku waa laba mar waxa ay markaasi safar ku tageen magaalada Garowe ee caasimadda dawladda Puntland qaramada midoobay madaxa ugu sareysa ee gabadha ka joogta dalkan iyo sidoo kale wafdi hogaaminayso saaka ayay ku jarmaadeen magaalada Garowe halkaas ayayna kala soo arinsadeen Puntland hadda kadib inay si toos ah ula macaamili doonaan si gooniya inay ayadu bada gaar u tuman ay u noqonayso markii labaadna waa hadda oo dhammaan beesha caalamku waxay soo saartay bayaan nuxurka hadalku uu dhacayo wadar ogol iyo waxa weeyaan wax mataqaan saamilada siyaasadeed ee Soomaaliya ay wadar ogol ka yihiin ma ahan wax kale inaan ka shaqeynin dalkan qoraalka af Soomaali ku qoran ayaa la soo dhigay bogga Unisom waxa uu dhigan yahay sidan saaxiibada caalamiga ee Soomaaliya waxay bogaadinayaan dadaalada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo baarlamaanka federaalka ah ee lagu xaqiijinayo hoggaansanaanta Soomaaliya ee waajibaadka caalamiga ah iyo kuwa heer gobol ee khuseeya xuquuqul insaanka oo ay ku jiraan xuquuqda carruurta waxaan rajaynaynaa iskaashi sii socda mustaqbalka oo aan la yeelano Soomaaliya oo ay iyadu xoojinaysa doorka ay ku leedahay fagaarayaasha caalamiga ah waxaan sidoo kale qiraynaa ku talagalka adag hadalka halka u fiirso waxaan sidoo kale qiraynaa hadalka inta iska hore waa iska afgobaad laakiin biyo dhuc waa kana waxaan sidoo kale qiraynaa ku talagalka adag ee dawladda federaalka Soomaaliya ku talagashay horumar ay ka samayso dhamaystirka dastuurka waxaan ku boorinaynaa dhammaan saamileeda inay sii laba jibaaraan dadaaladooda ku aadan dhisidda wadar ogol waxa meesha la socdo dhisidda wadar ogol loo marayo geedi socod loo dhan yahay wax aan wadar ogol ahayn inaan Soomaaliya ka shaqeynin wadar ogolkaas waa wixii barigaan nabadii nolol xisbiga nabadii nolol ee shacabka Soomaaliyeed dantiisa ka shaqeynay waxay nagu weerariyeen weeyaan wadar ogol wax loo dhan yahay wadar ogol wax shayaadiinta beesha caalamka kuwa loogu yeero waxay nagu weerariyeen weeyaan barigii sheekadii markaa hadda ku bilaabatay Xasan Garguurte iyo tiimkiisa madaxweynihii hore ee Soomaaliya sharciyadiisa dhumiyay hadda waxay dhaheen hawlgalka kala guurka midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS macnaha waa dadka soo saaray moogta Belgium Denmark Djibouti oo dadka soo raacanaysa laakiin Ismaaciil Cumar Gele waa dictator ninka uu noqdo ka dambeeyo kula soo taliyay Djibouti iyo Ethiopia waa cadowgeena koowaad badda nagu haysatay wafdiga midowga Yurub Finland urur goboleedka IGAD Ireland Talyaaniga Kenya ururka jaamacadda Carabta Norway Sudan Sweden Turkiga boqortooyada midowga ee Britain dawladda Mareykanka boqortooyada midowga ee Britain dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay intaas qoraalka ku haysan wax aan wadar ogol ahayn Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya wuxuu damacsanaa meeshan kama shaqeynayaan Xasan Garguurte iyo tiimkiisa muhiimadda marka biyo dhaca qoraalku wuxuu yahay in ay markaasi leeyihiin waxaan ku boorinaynaa dhammaan saamileeda inay sii laba jibaaraan dadaaladooda ku aadan dhisidda wadar ogol loo marayo geedi socod loo dhan yahay macnaha wadar ogol loo marayo geedi socod loo dhan yahay wax la isku waafaqsan yahay macnaha ma ahan wax kale meesha kama shaqeynayaan qodobkan waa qodobka ay soo saartay caawa maanta maxaa dhacay maanta dabcan sidaan wararkeena ku sheegnay United Nationku shalay markii baarlamaanku ay sameeyeen wixii dawladnimada dhinaca ka marsanaa ay koox baarlamaanka kamid ah ay sameeyeen oo dhaqaale ku bedesheen inay markaasi jabiyaan qaanuunka iyo dastuurka shacabka Soomaaliyeed oo aysan waxba ka bedeli karin baarlamaanka shakhsiyaadka dawladda Puntland xalay waxay soo saartay bayaan iyo qaraar dhammaystiran oo ay ku sheegayso in qodobo dastuura iyadoo codsanaysa qodobo dastuuri ah oo dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya
laisla ogolaa iyo dastuurka Puntland u gaarka ah iyadoo cuskanaysa waxay sheegtay Puntland inay sidii dowlad madax bannaan u dhaqmayso hadda laga bilaabo tan iyo inta dowlad Soomaaliyeed maadaama aysan aqoonsanayn Xasan Sheikh iyo tiimkiisa dowladda Soomaaliyeed sharciyadii ku dhisnayd ay iyadu dhumisay hay'adaha hadda jooga iyo Xasan Sheikh iyo tiimkooda dhan aysan aqoonsanayn waxay sheegeen Puntland inay beesha caalamka iyo hay'adaha caalamiga qaramada midoobay United Nations cid walba macnaha oo Soomaaliya mataqaanaa ka geysan jirtay mashaariic horumar ama waxyaabo kala gedsan inay si gooni ah oo iskeeda ula macaamilayso waa Puntland ayna si gooni ah ula xiriiri doontaa hadda laga bilaabo durbadiiba waxaa 31 March maanta waxaa tagay oo Puntland tagay oo qasriga madaxtooyada Puntland lagu qaabilay wafdi qaramada midoobay ka socday oo hogaaminayso ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya gabadha la yiraahdo Katrina inkastoo gabadhaas Soomaaliya dowladnimadeeda iyo hore socodkeeda caqabad badan inay ku tahay la og yahay oo waxyaabo badan oo Soomaalida iyo masiirkeeda ka dhan ah ayay mararka qaarkood ku dhaqaaqdaa laakiin garguurte oo waxa weeyaan madaxweynihii hore Soomaaliya wax walba wadda ku dhacay isaga keenay marka dalka isaga iyo Katrina labaduba waa qasayaan waa laba qaswade gabadhaas waxay timid Garowe waxa ayna markaasi sheegtay oo ay hoosta ka xariiqday waliba dowladda Puntland sida ay wax u doonayso ay hoosta ka xariiqday oo Puntland qaramada midoobay ay ula wadaagtay wararka la soo gaaray waxay sheegayaan in ay aqbaleen wafdigii in ay Puntland sida iyadu ay rabto loo dhaqmi doono hadday mashaariic tahay hadday dhaqaale tahay hadday lacag loogu talagalay tahay hadday wada la dhisay tahay hadday jid la waxaynay tahay hadday waxa weeyaan goob waxbarasho tahay hadday saaciidaad kala tahay oo wax lagu tariyo Soomaaliya inaan hadda kadib marnaba la marsii doonin dowladdii hore ee sharciga lumisay Xasan Garguurte sababta waxa weeyaan mashaariicdu wuxuu ka dhigay wax uu ku dagaalamo ayuu ka dhigay hub uu ku dagaalamo ayuu adeegsanaya mashaariicda Puntland hadda labadaas sano uu joogay gabi ahaanba mashaariicdu uu ka hor istaagay ummadda Soomaaliyeed caalamku ugu deeqay ilaa wax asagu waxa weeyaan jeebkiisa ka keenay ma ahan caalamkaas wax ugu deeqa Soomaaliya wadooyin la dhisayo waxyaabo la qabanayo wixii oo dhan uu ka curyaamay kala dagaalamay marka hub uu adeegsanaya ayuu ka dhigtay sida la ajrigeed ayaa beesha caalamku waxay sameynaysaa si toos ah ay Puntland ugu wareejinaysaa hadda kadib wax alla waxay u baahan tahay marka maanta kaliya beesha caalamku waxay qaadeen laba talaabo wadar ogol tibaaxaysa iyo talaabo kale oo markaasi qeexaysa muxuu ahaa Puntland inay macnaha ay si gooni ah safar degdeg waliba oo 4 saac gudahood intay ku tageen waliba ay u xaqiijiyeen in sida ay rabaan wax looga qabanayo hadda kadib runtii waa laba talaabo oo waaweyn oo dhanka waxa weeyaan mataqaana ay u qaadeen Xasan Garguurte inay dhabarka u jeediyeen ay u qaadeen daawada sida aad u aragtay fikirkaaga dhanka hoose lagu wadaag siina share garay muuqaalkan waana mahadsantahay